بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا channelka ha ilaawina subscribe iyo like. Habka oo jirkaagu u daaweeyo kalooriyada way kala duwan tahay, waxayna ku kala duwan yihiin cuntada nooca ay tahay iyo waxyaabaha ay ku kooban tahay cuntada, waxayna ku xiran tahay hadba cuntada nafaqaysan iyo mid aan nafaqo lahayn. Laakiin sidee bay jirkeenu kala saaraan cuntooyinka waxtarka leh iyo midka waxyeelo leh? Calories waa cutub lagu cabiro tamarta ama xoogga jirka, gaar ahaan tamarta kulaylka jirka. Haddaan sii caddeeyo sida jirka u kala saaro una qaato cuntooyinka gaar sida khudaarta iyo badarka sokorta ku jirto. Kelly Hogan oo ah maamulaha isbitaalka Mount Breast Cancer una qaabilsan tahay qaybta nafaqada ayaa tiri waxaa muhiim ah in diirad la saaro cuntada nafaqaysan. Haweeneydan ayaa sheegtay in baaquli khudaar ah iyo hal xabad ukun ah ay u dhigmaan 100 calories. Jirka waxay siinaysaa borotiin tayo sare leh iyo noocyo kala duwan oo vitamin iyo macdin sida vitamin A, C iyo K iyo folic acid. Hase yeeshee, badarka sokorta leh ayaan jirkaagu tayo fiican siinayn. waxaana xaqiiqo ah haddii badarka borotiin uusan lahayn iyo khudaar inuu keenayo in si kadis ah ay u kacdo sokorta dhiigga ama ay hoos u dhacdo si lama filaan ah. Taas ay ka dhigaysaa qofka inuu xiiseeyo inuu maalintii oo dhan macmacaan cuno, waayo isbeddelka sokorta dhiigga ay u keenayso, weliba ayadoo qofka uusan ka heleynin wax dheef ah. Sida laga soo xigta Kelly, calaamadaha lagu garto inay sokorta hoos u dhacdo waxaa ka mid ah inuu qofka dhaqso u caroodo, madaxuna wareero iyo inuu dareemo gaajo xoogan. Haddii sokorta dhiigga ay hooseyso qofkana ay gaajo xun hayso, qofkaas ma awoodo inuu wax diirad saaro ama u xadido fikirkiisa, weliba wuxuu sameynayaa dadka ayuu ku buuqayaa. Marka ay sokorta dhiigga hoos u dhacdo, jirkuna iskiisa ayuu u tabayaa inuu macmacaan cuno, waayo cuntadaas ayaa sokorta dhiigga kor u qaadaa. Si looga fogaado in si lama filaan ah ay hoos ugu dhacdo sokorta dhiigga, waxaad u baahan tahay inaad cuntid cuntooyinka sida fruitska ama khudaarta borotiinada leh, digirta ama haruurka noocyadiisa, waxaana la isku yiraahdaa cuntooyinka dhammaystiran. waxaa kaloo loo yaqaanaa carbohydrate adag. Carbohydrate-ka waa waxyaalaha jirka uu ka helayo kulka ama tamarta sida sokorta oo kale. Marka carbohydrate-ka adag waxay waqti dheer ka qaadataa jirku inuu sokorta u bedelo, maxaa yeelay waa kiimiko badan oo isku xirxiran. Marka jirka way u fiican tahay inuu carbohydrate sokortiisa tamar ama xoog ka helo, waxayna ka fiican tahay sokorta caadiga ah. Kelly ayaa sheegtay inay muhiim tahay inuu qofka kala ogaado cuntada midda u fiican iyo midda u xun. Ha ilaawina subscribe iyo like.